كسادبناس أها ولا عليها كشرفت له عن لحظة دبينها لحظة وهي وهي قوذكر kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada Kilwa Media waxaan ku sugannahay magaalada Muqdisho waxaan la joognaa walaashay Faadimo Cabdiraxmaan oo ah xaaska Ismaaciil Maxamed Aadan oo ah dhibane ku xiran xabsiga weyn ee caasimadda Puntland ee Garowe una xiran shil gaari xiranna in ka badan hal sano marka walaashay ma rabnaa inaan weydiino bal sida ay u aragto iyo nolosha Faadimo إسماعيل محو حرية شرموت لو قفا دعوة كنا قتي شرموت أو حرية هاي سنة إبريالة أو حرية هاي أرورته وقصو أراري مقدشان جوجا كرا لهجي يرسدي دينا لهجي يرسدي قفه وحنا سوق وضوانه أرور دت كود وحكون وران ميل دافات والبين لده يكون وران واي نمبر كود واي لقطة وجاري وايتي hadda waxaan ku go'aansanahay Muqdisho hata u haysanin waxa la dhahay transport ee aan haysanin ilmahay waa dayacsaneen waan ka soo araray waxaan ugu soo araray Garow oday hal sano iyo bilyaal ka hirin xabsiga Garow intuu Ismaaciil xiraa ma jirto cid caawimaad ka heshay qof shirin qof ka halnay iyo ka halnay ma jiro waxaan wax ka halnay ma jiro guri waan nagu soo guuriyay saddex guri aan nagu soo guuriyay gurigi afraadan deganahay waxa uga soo guuraysan guriyaha kiraan noo qabsaday saddex qof kiradooda hadda kiriyalka la iga maada xaafada la ii soo doonada waxaan ka soo araray dadweynaha xaafadahan dadkeena soo doonaday dadkeena dad anabi iga dhibaataysan baan soo arkay waa ka soo nagaday hadda Muqdisho jooga hata transportka ka nagaday ma haysid aroortii bisha hadda dhamaatay hadda waana noo haysada gurigi koo hadagna hadda bishaan la deganaynay lacagtooda nooga degan yahay waxa alla waxay ii qabadaan waaye Muqdisho ku noola dadweynaha walaalayaalka sharafta leh aawin baa ku raba ninka in la ii soo day waa raba 3,000 iyo 700 sagaal halaad iyo barba la sheegay wax waan noo qabdan waa waysanahay ilmihii waa dayacsan yihiin unoogi waa xiran yahay waxaan sameynaynaa hamarba Muqdisho ku noola qof waxa ii qabdan waa waysna xeerihii u tagan waxbaan ku soo waayay anigi anta ka rafaasan ka dacaysan aruurtay rafaasan anog ba iga xanuunsan dabeelaga dhacday arilay waa xanuunsan neerfu waa la dhahay waan ka soo araray dadkii deemihii ba guriga ii imaanaan deenta isii balile waxa u soo qabdo waay madaxan ku wareero isku soo tagay wali hadda Muqdisho aan jooga walaalkay kale is aragnay Muqdisho ku noola waxa qabanay male Faadimo ka sukow in kiradii guriyaha saddex guri la idin ka saaray ciyaalkii iyo adiga aad goorta noloshiin ku adkaatay aad ehelkaaga u timi oo aad soo aragtay ehelkaaga bay dhaba ku soo aragtay inaysan iyaba waxba ku dhaamin waxba ku biirin karin maxay ahayd maxaad isleedahay waad ka codsan kartaa shacabweynaha ku dhageysanaya shacabweynaha walaalay waxaan ku codsan doonaa aniga kiradii dhanba wadanka uga soo araray hunguriga ii dheer qof wala faraga ka dhigaa waxna ma awoodo qof walaalay waa siinaa insha Allah waa la halaya insha Allah bari waa iimaanaysa aniga meesha isugu joog in la igeeyo baadhii korta aruurtii maskax xanuunkeeda rafaad iyo dandaro absi adduunyo ugu soo tagay in adiga lagu xirto kiradii iyo qutliyoomka ciyaalka baa halis ku jidamiya aniba halis ka jira aniba in la xirta habeen waa la iimaana subaxii waa la iraadna meel aan meesha u guro la iga iimaanooya meeshan waxa ugu soo araray naftay baa la soo araray waa bisha 17deeda imaaday inta ilaa hadda lan waxay ii qabdo ma arkan transportka ku soconay ma arkan dad gaajoosan oo dhibaataysan leh ku soo dhacay waa intee Faadimo ciyaalka aad haysa Ismaaciil sagaal aruur baa u haya sagaalkii aruur iyo hungurigood wal barashadii waa laga reebay guriga ka canabanahay waxa una hayna male isugii waa xiran yahay haday dadweynaha ku ogsanaya haday wiilka ninkii ii soo daayaan muddo $1 haday u keen $2 haday u keen aruurtaas dayacsan anigu yoo dayacsan deen adduunyo oo qof walaab qof faragay qabsanay darteeda uga soo baxay ani Garow adiga oo lamarkaaga u sheegaya si degan bulshada cidii ilaahay baa ka soo qaad kale bulshadan waxa fariinta weydiisanaysid u gudbinaysid iyo lambarkaaga isu raacay aniga dadweynaha sharafta leh nambarkay waa u sheegaya furaha tadawa 37 oo nambarkay ah Faadimo Cabdiraxmaan Ali dhaha
muqdisho aan jooga ninka xiran xabsigii garooba ka xiran yahay yaalka garooba uga soo tagay nafiyo ilmaha mala xiran anaa la xiraa bari meesha isugu jooga la igeynaya waa ka qasbanaya dadka basaaradba ka dhacday lacagta gabadhan miskiin waa ilmahaana joogtaa saana uga dhex jirta lambarkaaga markii la ku celi sidii ciddii ku caawinaysaa ay wax ugu soo dirto ama ay isaga xabsiga uga soo deyso daawadayaal waxaa loo haystaa lacag 3700 ah marka qaan ahaan la sheegayna ah 9 halaad iyo bar buu u xiran yahay walaalkeen in la iscaawimo khayrkay leedahay waa la garanayaa in maxbuus la caawiyana waba ka sii khayr badan tahay nin maxbuusa 9 ciyaal u shaqaysanayay oo cid wax u geysay iyo cid soo booqatay iyo cid wax siisa midna aan lahayn oo qaanta loo haysto de ilaahay wuxuu yiri sunnaha ay naxariistay waxaan rabnaa walaalkeen in laga soo fududeeyo 9 halaad iyo barka oo lagu qiyaasay 3700 ay u kala haystaan 2 qof oo ku dhaawacmay shilkii mootada markay ay dhacday ninna gacan baa ka jabtay ninna laba ilig baa ka dhacay garow way ka dhacday dadkii waa la helayaa marka waxaan rabnaa walaalayaalow inaad soo caawisaan lambarka ay idin yeerinayso wixii aad ku awoodaan bal hadda nolosheedu la yaaban tahay bal nolosha horta marka hore laga soo dhanka nolosha loo soo baalkeeyo waxaan ku jirnaa xilli barakaysan oo xilligii fadliga soonkii bisha Ramadaan baa inoo soo dhow waxay ku soonto iyo hawlaha kale haba inoo dambeeyna ciyaalkeeda way uga soo caarday gaajo iyo wax la'aan iyo kiradii markii 3 guri laga saaray waxay tirina aniga la xiro goorta aan ka baqay baan soo caaray ehelkayga aan bay dhabo ugu tagay waxba waa ka soo waayay halkan jooga wax halkan iga saara gaari aan ku aado muqdisho ku aado iska daa ma hayo waxaan cuno baan ahayn iska daa waxaan baalkeeyay marka waxaan codsanayaa in transportation-ka iyo ciyaalkeeda ugu tagay lahaydna laga soo bixiyo wixii lagu kaabin karoona xarigiisana laga qayb qaato ninka la soo daayo 3700 baa loo haystaa waxba ina kuma aha hadii aynu aqliga nadiif ka nahay oo inu ilaahay horti wax wala baxayno maraha cid gaar ah laga codsanayo Soomaali weyn bay u soo bandhigatay arinteeda lambarkeeda ayay ku celinaysaa u dhagan uglaado lambarkeeda ugu soo diray wixii aad u awoodaan walaalayaal nambarkay waa 37 nambarkay waaye walaalayaal qofkii waxa ii soo awoodi karo aniga deen waa ka soo araray hunguriga ay daba jooga ilmihii waa rafaasan wada yaacsaneen bari meesha uu joogo la igeynaya Faadmo waxaan rabnaa inaad wax yar ka sheekaysid maadaama aad ahayd sawjada ama xaaska Ismaaciil waxaan rabnaa inaad ka sheekaysid qaabka uu dhacay shilku qaabka uu dhacay laamiga jidka Sodonka ka dhacay laamiga jidka Sodonka isugu hayo maqrab bacdul maqrab baa dhacay waxa ka dhacay laba nin gacan baa ka jabay wiilna laba ilkid baa ka dhacday ninka isugu naftirkiisa dhaawaciisa waxaan ku rooysday naftirkiisa dhaawac ay naqday gaarigana gaari dad bay haayay gaari muslim bay haayay gaarigooda way hagaagsan way iska tageen anagina odagii baa naga xiran gaarigaasaan noogu soo xamaalay waxa uu sameeynayna ma waxaan qabso kor mala qof xanuunsan waanahay oo naga iska xirmo lah wax ay qabaran ma hay ilma adeer waa waaye tolitri xili waa ashir waa waaye hatta uma tago meesha isugu joogo ana uu adeego u salaam waa u awoodo waaye salaanta ilmaha u geeyo waa gaar waaye ilaa ma awoodo gaarigi ma awoodo waxay cunaay ana u geeyo ma awoodo ilmihii wax siino waa gurigo hadda nagu soo saarooya intaan galayna hagana galayna waan ogaanaya waan burinaya hadda gurigo haloo kasmaanyo u dhawaa mar dhow soo dego waa mahadsan waxaan si naxariis la idinka codsanaynaa inaan ismaqallo soo caawino aan ka qayb qaadano soo deynta iyo maareynta soo deynta inaan ka qayb qaadano soo deynta maxbuuska walaalkeena ee ku xiran Garoowe muddo ka badan sanad una xiran lacag dhan 3700 ahna 9 halaad iyo bar markii la qiimeeyay in isaga la soo caawiyo in reerka la soo caawiyo oo dhanka nolosha culayska laga dulqaado isagana aynu ka qayb qaadano soo deyntiisa qaan baa loo haystaa qaanta inaan ka bixinno soo deyno inuu ilaahay ugu dhawaanayna bil Ramadaan baa la gelayaa ilaahay horta aan wuxuu baxsano culayskana aan la wadaagno walaasheen Faadmo walaalkeen Ismaaciilna aan ka soo saaro xabsiga suuciyaalkiisa ugu shaqeysto waa maasantiin